Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halka naga daawanaysana waa maqal tube kusoo dhawaada muuqaalkana maanta haddaba intaan muuqaalka u gudagelin daawadayaal haddii ay tahay markii kugu horeysa aad youtube-keena maqal tube aad soo booqatid subscribe saar si aad u heshid muuqaalada quruxda badan aan barta mar walba aan soo gelino waxaan idin leeyahay mahadsanidin haddaba muuqaalkana maanta wuxuu yahay fanaanad dalkaasi wadanka Sacuudi Carabiga oo show ku qabsatay fanaanadani waxay show markaasi ay ku qabsatay wadanka barakeysan wadankii quruxda badnaa dalkaasi Sacuudiga haddaba fanaanadani waxaa kasoo qaybgalay showgeeda kumanaan kun ayaa kasoo qaybgalay balse midda la yaabka badan ayaa waxay tahay fanaanadani inay sameyso wax lala yaabo muslimiinta dhammaan lala argagaxo waa arin la yaab leh haddaba fanaanadan waxay bartaasi ayadoo showgeeda hees markaasi ku qaadayso ee ku caysay ilaahay subxaana allah haddaba markaasi ereyga ay dhahday waxaa ka mid ah ilaahayow adiga iyo malaa'igtaada ma awoodaan inaad wax sameyso wax hadda aan sameynayno inaad wax ka qabatid subxaana allah iyo erey kale oo bartaasi hadda aanan munaasab ahayn inaan soo qaadano oona afkeenana soo mari karin subxaan allah haddaba ilaahay waa qof mar walbo naxariis badan balse fanaanadani markii ay sidaas ay sameysay waxaa ku dhacday mucjiso arrin la yaab leh ayaa ku dhacday ayadoo markaasi maslaxa tumanayso oo show dhex bartankiisa marayso oo markaasi dadka shacabka dhan ay daawanayaan markaasi waxaa la tusay wax arrin yariisoo mucjiso waxay wadatay surwaal markaasi waa aragtay fanaaniinta ajaanibta waxay xirtaan surwaala badanaa markay heesayaan sidoo kalena waxay xirtaan fanaanid haddaba surwaalkii ay qabtay ayaa dhanka hoos dhan ayadoo markaasi daansi deerayso oo barta masraxa saaran surwaalka ka jeexmay ilaa qaybta hoose ee loo yaqaano private partyga markaasi uu ka jeexmay haddaba isla marka ayadoo masraxa saaran waxay fanaanadii inay isku naxdin darteed waxay sameysay ay kaswaasay markaasi oo waddo u bannaan markay arkeen ay iska fadhiisatay bartaas ayay iska fadhiisatay ilaan waa qof qaawan haddaba haddii kala istaagtana dadkii ayaa arkayaan marka way iska fadhiisatay waxay sameysay ayay kaswaasay inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun waa arrin lala yaabo marka qof markaasi maslaxa la saarnaa ayaa wuxuu sameeyey mara ayuu ku duubay sida balse ayadii markiiba waxay sameysay carar ayay maslax ayay kasoo degtay halkaasna way carartay way soo carartay balse dadka dhanna way fiirinayaan oo ayada ayaa lala yaaban yahay markii show ay kasoo baxday barteeda twitterka waxay kusoo qortay shacabka markaasi Sacuudiga waan idin jeclahay showgeynina maanta waan idinka raaligelinayaa oo sidaan rabnay umaanuusa dhicin sidoo kale showgeynina maanan dhammaystirin oo waxaan u baahanahay mar labaad showgeyna inaan dib u furno oo markaasi maslaxa aan kusoo laabtay ayay bartaasi twitterkeeda kusoo qortay haddaba waxaa dhacday markaasi in loo diido mar labaad inay meesha kusoo labato waxaana u diiday culimmadeeni kheer allah siiye dalkaasi Sacuudiga sidaan ognahay wadanka Sacuudiga waxa boqortooyadiisa hadda haya boqor Salmaan wiilkiisa u dhalay oo isagana sidoo kale lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan intuu boqortooyada la wareegay wadankani Sacuudiga wuxuu ka bedelay dhaqamadooyin oo muslimiinta u yaali jiray ayuu ka bedelay wax walba oo dhaqanka Sacuudiga u yaali jiray oo diinta muslimiinta u yaali jirtay uu ka bedelay wuxuu keenay dhaqamo kale ajaanib ayuu markaasi u keenay culimada ayaa markaasi habaareen wiilkani Maxamed bin Salmaan ayagoo leeyihiin oo mudaharaad weyn inay sameeyeen ay markaasi soo baxeen wadankaasi Sacuudiga ay leeyihiin boqorka wiilkiisa markaasi ay ku habarayaan wadanka waxan uu ku wada fasaxadkan haddaba wiilkan waa wiil dhalinyar markaasi 22 jir
balse wadanka waxaa lala yaabanaya waxyaala badan inuu ka bedelay sida ognahay xaramka dhaqamadooyinka uu ka bedelay waxaa ka mid ah looma ogoleen diraadooyinka yuhuudda inay markaasi ay soo maraan xaramka balse haatanna wuu u baneeyey asagoo u fasaxay oo wuxuu dhahay diyaaradooyinka way mari karaan iyo sidoo kale waxyaalaha lala yaaba oo wadanka uu kusoo kordhiya waxay ahayd inay wadanka markaasi heese wixii la rabo lagu qabto fanaaniin ajaanib ay imaadaan sidoo kale waxaa uu kale uu sameeyey waxay tahay dhaqamadii kale gabdhaha markii hore way xijaabnaan jireen balse haatanba waxay bilaabeen inay markaasi asturnaanti ay iska dhigaan asaga ayaa u fasaxay ayuu wuxuu dhahay xor ayaa tihiin nooc arabtiina waad xiran kartiin ayuu dhahay sida gaaladana waa u labisan kartiin haddaba wiilkan yar dhalinyarta aabihiisa markaasi waxaan ognahay inuu xanuunsan yahay ilaa haatan buu dhalin sababtaasna asaga uu ka dambeeyay ayaa laleeyahay waxaa jira boqor Salmaan wiilkiisa yar sifo uu madaxweynteeda u qabsado inuu isku dayo uu la wareego boqor Salmaan inuu la wareega markaasi boqortooyada aabihiis u soo hanjiray haddaba aabihiis ayaa waxaa uu irbad uu ku duray ilaa hadda irbad waxa uu ku jiifaa sifo uu usoo naxinbo mar walba uu soo kacana irbadaas ayuu ku duraa marka boqorka wuxuu soo yaray waa aabihiisna ilaa hadda wuu xanuunsan yahay mar walba uu soo kacayana irbadaas ayaa lala tiigsadaa ayuu leeyahay balse sidaan ognahay dhaqamadooyinkan wadankaasi Sacuudi u yaali jiray dhaqamadii hore oo muslimiinta loo yaqaan jiray maho marba markii kasii dambeysana waxaa lagu arkayaa dhaqan foshxun balse fanaanadani aadaantana markii lasoo saaray waxaa loo diiday soo baxeen loo diiday inay mar dambe ay ku qabsato show sidoo kale culamadii dalkaasi Sacuudi Carabiga ay soo baxeen ayna ku dhaheen boqorka wiilkiisa markaasi ku aflagaadeynayeen ay leeyihiin waxaana diinteena munaasab ahayn ayaa mar walba keenaysa ay leeyihiin balse fanaanada waa loo diiday showgeeda ayadoo halkaasi ku eedeysan oo markaasi ay leedahay dalka shacabka Sacuudiga waa idin jeclahay laakiin sababo jiro awood iyo ilaa liididay wadanka ina markaasi masraxna siin wadan waayo taasi ayaa sababtay ay leedahay haddaba fanaanadaasi ayaa ceebtaasi la kulantay subxaanallah haddaba daawade muuqaalkan si sheegresiva meel badan ugu gaaro dadkana ay u waasaqaadaan haddii ay markii ku horeysa aad youtube-kana soo boqotana fadlan ha ilowin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaalada qurux barta mar walba soo gelino mahadsanid